wacan oo wanaagsan dhammaan akhyaartana daawanaysay ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii xaqiiqa raadis qodobadan ku soo qaadanayno waxaa ka mid a jabhadda TPLF oo soo bandhigtay kumanaan askari oo maxaabiis ay sheegeen inay ka qabteen ciidanka Itoobiya iyo ciidamada gaarka ee qowmiyadda Axmaarada. haddaba sidee bay duutaba ku qabteen kumanaankan maxaabiista iyadoo oo markaa 6 cisho oo kaliya uu dagaalku socday? xukuumadda Itoobiya se maxay ka leedahay ciidankan tirabeelka ah ee maxaabiista ay TPLF sheeganayso inay qabteen iyo kumaankunka kale ee sheegayso inay dileen? qodobada iyo qodobo kale oo caalami ah ku soo qaadanaynaa barnaamijka ku soo dhawaada. waa hagaag aynu ku bilowna barnaamijka jabhadda TPLF ama ciidanka Tigreega ayaa waxa ay soo bandhigeen labadii maalmood ugu dambeysay boqolaal oo haatan la sheegay inay kumaankun gaadheenba askar maxaabiis ah oo markaasi ay sheegeen in ay ka qabteen ciidanka Itoobiya iyo maleeshiyaadka Axmaarada Faano iyo markaasi ciidanka gaarka ah ee qowmiyadda Axmaarada, iyaga oo muuqaalada ay soo bandhigayaan oo la sheegay inaanay ahayn muuqaaladii sanadkii hore ay yihiin muuqaalo cusub. dadka u kuurgala markaasi arrimaha la socday dagaalka Tigreega waxa ay sheegeen in muuqaaladan ay yihiin qaar cusub. waxa ugu badan waliba askarta ay haatan soo bandhigeen waa ciidanka federaalka Itoobiya oo dareyskooga xiran iyo ciidamadii magtay gaarka ee qowmiyadda Axmaarada, kuwaasi oo haatan markaasi ay sheegeen in ay ka qabteen dagaaladii dhacay 5 maalmood ee ugu dambeysay, kuwaasi oo ay sheegeen markaa inay ka qabteen aaga markaa furimaha Kobo ilaa iyo Sobel Mountains dagaaladii halkaasi ka socday. haddaba waxa isweydiin leh dagaalku 5 maalmood oo kaliya taaba 6 maalmood u socday, sideebay inta oo kun oo askari ay u qabteen? maxayse ay ka leedahay markaasi xukuumadda Itoobiya askartan tirabeelka ah ee ay markaasi muuqaalada ka soo duubeen TPLF-tu? horta dhinaca dawladdu iyagu way beeninayaan in ciidana moogtay laga qabtay, ilaa sanadkii horena way beeninayeen, waxaanay sheegaan mar walba oo yiraahdaan warshad dharka militariga samayso oo Tigreeg uu leeyahay ayaa moogtay dharka ay soo xidhaan intay Tigreeg u soo xidhaan bay waa maxaabiista ciidanka Itoobiya laga qabtay marka ay yiraahdaan. haddaba si kasta ha ahaatee waxa jirta markaa in haatan muuqaalo toos ah sheegasho afku maaha fiidiyoyay ka soo duubayaan iyagoo markaa raxan ay u socoto askartii oo dareyskii ciidanka Itoobiya xiran oo markaa ay sheegeen inay iyagu soo qabteen. marka indhaha horta macallin inay soo xidhaan kale Ilaahay baa doog, laakiinse in dareyskii ciidanka Itoobiya xiray iyo maxaabiisiiba ayaan arkana. dadka militariga falanqeeya waxa ay haddaba sheegayaan oo xaqiijinayaan in askartu moogtahay ciidanka Itoobiya ay markaasi badankoodu ay u badan yihiin bay ku eedayaan markaasi in dad moogtahay lagu qasab lagu soo askariyay ay yihiin, marka xabadii oo dhacaysa arkaan bay soo dhiibaan, saas u badan yihiin bay dadka qaar yiraahdaan. laakiinse iyadoo xukuumaddu waxa ay sheegaysaa in ay markaasi ciidanka Itoobiya moral hayaan. shalay toona waa soo bandhigay moogtahay dhabaalkii lahaayeen moral buu hayaan ciidanka Itoobiya 120 milyan shacabka anaga difaacayna, يعني inaanu moral xumahaynin bay markaasi sheegayaan. haddaba adu si kasta ha ahaatee iyagu waxa haatan arkayna waxa weeyaan in ciidankii markaasi Itoobiya gurubyadaasi loo soo qabanay raxantaasi sanadkii hore haatan ilaa dhowr kun oo askari ayaa haatan laga hayaa baa leeyahay. maxaabiistii hore ee ma garanaysaa sanadkii hore la qabtayna ilaa 5,000 markaasi askari waa kuwii sii daayay iyadoo markaas uu ka codsaday Obasanjo ergagii dhexdhexaadinayay markaasi ka socday midowga Afrika ee markaa dhexdhexaadinaya xukuumadda Itoobiya iyo TPLF-ta ee wada hadallada dhexdhexaadinaya ayaa ka codsaday Tigreeg in maxaabiistii hore ay sii daayaan bilaa hadal marka bilaa shuruud, yani oo kuwii soo daayay ilaa 6,000 oo askari bay sii daayeen. sanadkii hore waa arkay ma garanayna muuqaalada ay soo bandhigaan ilaa dhowr iyo 10,000 oo maxaabiis ayay moogtay soo bandhigi jireen. weli hadda qaar bay hayaan baa leeyahay, inkastoo ay yiraahdeen kolba 4,000 horena way sii daayeen, 7,000 markii dambe Obasanjo ay sii daayeen, marka way sii wada deynay bay yiraahdeen, laakiin ilaa haatan waxa la leeyahay qaar bay hayaan. adoo si kasta ha ahaatee dagaalku weli wuu socdaa. dhinaca xukuumadda Itoobiya weli hadda soomay bandhigin iyaduna wax askar ama muuqaal ay ka soo duubeen, yani askar ay ka qabteen maxaabiis dhinaca TPLF-ta weli hadda iyagu soomay bandhigin. Tigreega ayuunba haatan soo bandhigay.
dee dagaalkuna weli waaba dee 6 cisho keliya tuugu badnaan haatan uu socdaaba kolley marka waxaa lagu saadaalinaya dagaalkan inuu noqdo kii ugu muddada dheeraa uguna khasaaraha badnaa marka abid ka dhaca Ethiopia ayuu noqonayaa dadka militariga falanqeeya ku sheegayaan ilaa iyo haatan waxaa jirta marka in ay ku baaqayaan beesha caalamka qaramada midoobay iyo markaasi wadamadii reer galbeedka haatan ugu baaqay degdeg xabadda in loo joojiyo oo miiskii wada hadallada lagu soo laabto laakiinse wada hadaladii way ku kala kaceenba waxaana arrinka la isku afkarin waayey ugu weyn uu yahay baa la yidhi galbeedkaasi Tigray oo marka kooxaha Tigray oo dalbanayaan in loo soo celiyo axmaaraduna ay leedahay markaasi looma celin karo annaga ale jiq iyo jiq halkaas la isku hayaa qodobka kalena waxa weeyaan Tigray oo dalbaday in wixii asaasiga ah moogtay loo sii daayo sida moogtay telecommunicationkii iyo bankinkii iyo markaasi dhammaan waxyaabihii asaasiga ah oo dhan duulimaadyadii in loo soo daayo taasi oo haatan xukuumadda Ethiopia ay laashay oo diiday sheegtay in marka haddii loo sii daayo markaasi bankinka iyo duulimaadyada inay hub casri heli doonaan oo dib ay ula dagaalami doonaan saa darteed waxay yidhahdeen marka hubka dhigis ha la sameeyo hubka dhigistiina waxa diiday markaasi Tigray Ethiopia xukuumadda waxay yidhahdeen hubka dhigis ha lagu sameeyo oo hubka soo dhigaan Tigray soo xareeyaan Tigrayna waxay yidhahdeen marka ma dhigayno hubka way u ogolaatay marka xukuumadda xigta way hubkiina haysta ee aynu wada hadallo 10 sano ba qaadatay taasina gaashaankay ku dhufteen waxay yiraahdeen wada hadallada jiitamaya iyo cunaqabataynta saaran isma qaabilaysa leeyihiin Tigray waata la isku afgaran waayay lagu kala kacay markaasi wada hadalladii waxa haatan xalku noqday baa la yiri in xabadu ay shaqayso oo kii Roomba reerka u haray ay go'aansadeen waa barnaamijka inta isku dheeytaniyo kulantiina dambe nabadgeliyo